haddaannu nahay guddida oo runtii markay aragtay biriijkaas oo dhowr sannadood halkaa ku dayacan in ay wax ka qabtaan gaadhsiiyaanna dadka reerka Somaliland hadday dawlad tahay iyo hadday ganacsato tahay iyo hadday hay'ado tahayba intaba ayaannu guddi ahaan in biriijkaa la dhiso oo sida ugu dhaqsaha badan loo dhiso hiyigaasaannu xambaarnay waxa aad noogu markhaati kacay hadda roobabkaa daay iyo mashaqadaa dhacday baahida loo baahan yahay biriijkaa loogu baahan yahay ayaa dhammaanteed inoo markhaati kacday ugu horraysa waxaan aad iyo aad u baryaynaa oo ugu soo jeedinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo in alle inta ay khusayso arrinkaasi khuseeyo in sida ugu dhaqsaha badan biriijkaa wax looga qabto biriijkan dherarkiisu wuxuu yahay 48 mitir wuxuu leeyahay 3 xisbaan jooggiisu waa 6 mitir iyadoo kaabka laga soo bilaabayo balliciisu waxa weeye 9 mitir iyo 40 laba layn oo baabuurtu isku weydaarato iyo laba meelood oo ay dadku marayaan wuxuu leeyahay 2 abaatman iyo 2 biir oo dhexda waxaa walaalaha muxsiniinta la socodsiinaya biriijka inay ka qayb qaataan dhamaystirkiisa runtii waynu ognahay cidhiidhiga maanta magaaladan Hargeysa ka jira iyo sida isu socodkii u adkaaday waddooyinkuna runtii iyo biriijyadu waxay ka mid yihiin maraafiiqda ugu muhiimsan ee ummaddu ay leedahay ee magaalooyinku ay leeyihiin ee dadku markaa ay baahiyahooda iyo danahooda ay ku qabsadaan waxa weeye aynu markaa ka qayb qaadan oo waxaynu samayn karaa kan maahe toban baynu samayn karaynaa iskaa wuxuu qabsaa in magaaladan ku dhisan yaan loo kala hadhin biriijka waxaynu ku dhisi karnaa 2-3 bilood gudahood baynu biriijka wax ugu qaban karnaa oo aynu ku dhisi karnaa oo culayska magaalada haysta inaga fududaan karaa intaa leeg iyadoo laga duulayo ayuu fikradda biriijka waxa ku timid in culayska faraha badan la wax laga qabto ugu horreynna waxa aanu ku bilownay oo barnaamijkani ku bilaabmay in taageerayaal muxsiniin oo reer qadara iyo hay'adda aan guddoomiyaha u ahay ee la yidhaahdo tanmiya inaannu barnaamijkaa diyaarinno baahida iyadoo laga duulayo inaannu isxilqaanno walaalaheen markaa muxsiniinta ama samafalayaashaasina ay naga soo taageeraan maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo sheegay nin laan ka jaray wado inuu jannada ku galay oo ay sabab ugu noqotay qaybaha iimaanka markuu rasuulku tirinayay sallallahu alayhi wasallam wuxuu ashhaadada u sareysa waxa uu hooseeyo imaadatul adaa can tariiq dhibka oo wadada laga qaado marka inaad wado wanaagsan oo laamiya ummadda u samayso oo dadku ay dooxa iyo biyaha iyo dhiiriga kaga raystaan waxa aad u qiimo badan weeye maalka lagu bixinayaana waa maal halkii waqafka ku galaya dariiqaas inta uu jiro oo dhan marka taasaynu isku dhiri galinaynaa qofkuna cibaado u niyoonaya iyo walaalihiisa inuu caawiyo nabigu mar kale wuxuu sallallahu alayhi wasallam khayrun naas anfa'uhum linnaas dadka waxa u khayr badan qofka dadka ugu nafci badan nafciga ugu wanaagsan iyo dheefta maanta ugu fiicanna dariiqyadeena kamida Allah idin barakeeyo waxa ku bixisana bedel khayr qaba Allah idin ka siiyo waxaan la hadlayaa Somaliland oo dhan gaar ahaan xeradan aan guddoomiyaha ka ahay ayaan la hadlayaa marka waxaan u malaynayaa inaynu nasiib leenahay wixii aynu ku darsanaa oo waxa dunyada iyo aakhirada labada in anfacaya ka ugu weyn suuqa ka dhaca oo runtii baabuur iyo dhisma dhaafi karo hal birish baa inoo furan haddii marka birish labaad la helo oo suuqa ku ag yaala arrimahaas oo dhan baa runtii kala muxuu ahaayay zaxmada faraha badan laga raysanaya sida kale garanaya dadkii reer Hargeysa oo dhan biriishadu waxay u tareen iyo faa'iido ay lahaayeen haddii xilliyada qaarkood anagu aan noolayn dadkii garanaya waxay garanayaan dooxa inta soo rogmaday labada daamood kala xidhay oo dadkii hooyooyinkii iyo waalidkii wixii suuqan ka shaqaysan jiray eeriyada sharaacle iyo wixii la mid aanay u suurto gali jirin inay dib ugu noqdaan jaanta saraba oo aanay u talaabi jirinba marka khayr Allah idin siiyo biriijkaasi intiisa badan wuu inoo diyaarsan yahay si aynu u badbaadno uguna liibaano adduunka iyo aakhiradeenaba dhismihiisa laga qayb qaato waayo rabbi wuxuu subxaanahu wa tacaala wafcalu lkhayra لعلكم تفلحون خير كسمية سيئة الليبانتان وانا صدقة جارية قف بساق الله بحكرا والدك وحقو داري كرا
biriishka saddexaad ee Hargeysana noqon doona waxaan ka codsanaynaa walaalaha muxsiniinta ah in ay na garab istaagaan oo noo dhisaan biriishka caqabado badanna runtii waan ku qabnaa xilliga roobka uu doo ma mari karno adeeg ma doonan karno dhakhtar ma aadi karno caruuruhu waxbarasho nooma tegi karaan runtii waxaan ogahay caqabado kale oo ah in dadka waaweyn aynay mari karin dooxa ee dadka xanuunsanaya waayeelka dumarka uurka leh ugu dambeyn wasiirka wasaaradda hawlaha guud ee Somaliland ayaa isaguna dhankiisa bulshada ka codsaday inay kala qayb qaataan dhismahani waxaan dadweynaha gobolka Maroodijeex ganacsatada Somaliland guud ahaan dadweynaha dhalinyarada dumarka waxgaradka aan ka codsanaynaa anigoo ah wasiirka wasaaradda hawlaha guud in laga qayb qaato biriishka dhiskiisii oo iskaax u qabso lagaga shaqaynayo kaasoo annaga wasaarad ahaan hawlaha guud ahaanna aanu ka qayb qaadan doonno dhismihiisa waxaanu ku darsanayno insha Allah bismillaahi kariim ummadda Somaliland guud ahaan dawlad iyo shacabba waxaan ku boorinayaa oo u soo jeedinayaa in lagu kaaliyo cidda gacanta ku haysa biriijka dhismihiisa